عليكم ورحمة الله وبركاته دمان bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waan salaamay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh kusoo dhawaada maanta barnaamij yar oo gaaban oo markii ugu yahay walaalkay Fattaax insha Allah baan nala socon doontaan kusoo dhawaada Fattaax barnaamijkan caawa kusoo dhawaad walaal aad iyo aad baan ka mahad celinayaa maadaama maanta igu casuuntay inaan wareysi yar iga qaado annaguna isku taxallujinayno waxaan yar aan ka ognahay wadankan inaan wax yar ka fataaban bismillah waan saan wada sheegnay waxaan caawa duubaynaa ama barnaamij yar oo ku saleysan qaybta ay mulli markii la dhaho waa intay ka kooban tahay xagee weeyaan ayaan deegaanka Soomaalida dhinacay kaga taala ka horeysa Fattaax waxaad ku bilaabaysaa barashada kadib waxaad ku bilaabaysaa mulli balse meesha kaga taala deegaanka Soomaalida oo sheeg magaceeda labaadna waa noo raacin كل ما قاعد واحد اللي عبد الفتاح داير موسى اللي وكل نول محيط مجال الدم حضان إيجار جغرافي عن كسوقاته مجال يعني لوك الدجان كان مول اللي هذا مركز بابل جوتو إن عكونفر أيوك هذا حاجة حر مركز جوتونا وحكا حاجة إن عبارجة ودول ده حياة بابل يفيق أنت وده حيزة لبعض هريرة لنا وحكا مريال لبتوك توكو إيروين اللي هذا أيوة هذا إيران يتأخذ أيه مركا وادول عرمدوه أو يعني بوره لهين أو إلهي محيط أو سمي وادول عرمدوه مركا أساسا مولي ممكن هو حال حسوسانيا dadku waxay xasuusanayaan badana waa goob mulli caan ku ah ama ba nabadda iyo isjeclaysiga iyo midowga shacabka midaysan yihiin waa meel caan ku ah bal taariikh ahaan haddaan soo qaadano mulli jabhadihii soo maray hadda ka hor qaabkii ay kusoo galeen iyo qaabkii ay bulshadu uga hortageen soo cabiyeen bal Fattaax nagu yar socon walla waxaa jabhada badan baa soo marsay ama Soomaali galbeed ha noqoto ama ha noqoto laakiin waxaan ka soo yar qaadanaynaa jabhada marka Soomaali galbeed burburtadeed jabhada oromada oonag leedo oonag marka ahaan iyadu huwan tahay magaca yani oo islaamnimada oo diinta jihaad oo kale iyadoo huwan markay soo gashay dad badan baa markaa ku biireen magacaas intay qaateen ayay ku biireen gadaal markay saa loo socdeen laakiin marka dambe tabaaqadii markay muddo ku jireen waxay ka dareemeen dib bay ka dareemeen tooyin badan bay kala soo kulmeen shacabka dhibaato badan bay markaa shacabkan iyagoo adaan raaceen iyagoo haddana shacabka oo raaceen oo dhignuglaadeen oo qarinayaan haddii axmaaradu timaado oo qarin jireen oo wax siin jireen ayay marka dambe haddana dhib kala kulmeen dhibaatooyinka sheegaysid maxaa kamid ah dhibaatadaas waxaa kamid bulshaduna inoo dhageysanaysaa ay u maqasho dhibaatooyinkaas maxaa kamid ah dhibaatadaas waxaa kamid ah dadkaas waa dad marka intay laayeen dadkooga maxay oo intay cunto siiyeen har bay dul fadhiyaan harta waxay ku taalaa meesha oo khayraad aku taalo midka imika hodan baa lagu macdan birdayta agteeda leeyahay halkaas ay xasiid ku dubanayaan habeenkii reer meel degan oo wadaajaha ayay aroornimadii dad la soo baxday ilaa 12 xubno qof oo odayaal ah oo habeenkii alla bariday ayay hal meel lagu laayay marka inta ka horeysa qodobka kale ka horeeya laakiin markii la arkay dadkii inay dhibaato badan dadkan u geysanayso ayay niman kale oo wax garadka wadanka u dhashay is abaabuleen inay dhibkan haya inay iska dul qaadaan raggaas abulay ma dadkii deegaanka bas wadad meel kale ka yimid may dadkaas waa dadka deegaanka u dhashay intay isku dhacaysay oo dhibaato ku dhacaysay ayay wax garadku cidii wax faantay inaad nimankan dhibka xagga dambe ka wataan oo ogaadeen ayaa isxilqaamay inay la dagaalamaan iyaduna baa marka dadkii inta badan iyadoo ugu dhaganuliyeen iyagay raaceen laakiin nimankaas waa niman xun oo dhaqan doorsimay way dhaqan doorinayaan luqadii bay ka tageen dhaqankooda bay qaateen marka magaca Soomaali bay ayaa la dagaalamayaan aakhir dambe waxa isaasaday odayaal kale oo iyo dad kale oo imika qaarna oo dhinteen Allah u naxariisay qaarna joogan oo kaba soo qaad imika Allah u naxariisay Cabdi Xaydar oo kale iyo Sheekh Cabdi Aadan iyo Allah naxariisay Rashid Macali Aadan iyo adin malaamada dad badan ay joogan ayay is abaabuleen iyagoo is xilqaamay
oo dowladdan taageerin oo cidna taageerin ayay isagu inta iscilqaameen ayay maxka baasha la dagaalameen iyadu maxay odhan jirtay marka ururkii is abaabulay oo iyagu odayaashan madax ka yihiin dowladdii maciyaalkii cabdi xaydar bay ku odhan jireen mataqana iyaguna markaa magac bay la baxeen magac liyaado leego ayaa la baxeen aan ku noqono waxa weeyaan dhibaatooyinka waxaa tiri aw khayraad mid baa sheegtay inay dad ku laayeen 11 qof oo fadhiyay wadaajin meelo kale oo midna way jiraan oo fara badan balse aan soo koobno dhowr qodob meelo kale oo meelo kale hadee nimanka mulli ahaan amaba deegaan ahaan deegaanka markay soo gashay horta intaan aan imika ka xasuunay ama wax ka yar qoray waxaa ka mid imika meesha ceelburo la yiraahdo ceelburo oo xigta markaa imika waxay ka sii mataqaanaa imika ibro muuse markaa joogto ayaa dhinaca gabaldhaca eerarta inta ka soo sokaysa waxay maxay xuduud la tahay qoladan fadis la yiraahdo dhanka kale daaqada dul fadhida ayaa xuduudeen markaas 8 gabdhood oo aaboodana haddana mid la socdo ayay jaad doonteen jaadka markaa la doonay oo soo noqdaan ayaa la qabtay markaa 8 gabdhoodba oo gashaantay wali markaas oo qaan gaadhay oo maxay qaarna u doonayeen niman u doonayeen ayaa qoorta ka jareen naasay horta markii hore ka jareen waxay dileen yacna waa dilma oo yacna waxshima yacna oo bili aadamnimad aan ku jirin oo gabdho safara intay qabteen ayay waliba la bireeyay marka gabdhahaas marka la bireeyay bulshadii markaa waa muddo isku dhaweeyay bulshadii markaa iyagu dhagunugulo oo moodaysa inay dowlad ka dhalan doonto dadkan ama islaamnimada ka dhalan doonto ka taageeray markay dhibaatada ku arkeen ayay maxay nimo walba wada kaceen mid kalena haddana meeshii koora in yar ka soo kaysa kooradan xagga imika magaalada baabili dhanba markaa joogto galbeedka xagga yar ka xigta xagga xarar nagalta niman geerjira oo meel ku jooga oo meel ku jira meel golaha ayay kala soo baxeen 4 qof waa la qaaday koora in yar ka hooseysa ayay 4 dhalinyaro oo geerjira ah oo lagu dilay marka kuka intaas oo dhibaato sheegaysid marka isku daba dhacayeen bulshadu maxay ka aamusnaayeen ama dhibaatooyinkan ma dad dareensan bahayeen bisa dad ku taageersan dhibaatadan oo dad iyaga ka soo horjeeda iska caabinay bulshadu u arkaysa waqtiga marka dadka bulshada meesha joogo dadkoogan inay guumeysi saaranta oo dadka cadowga leenaya oo ku arkaya ayay markii hore ka yar damacsiin xaggan qoladan magac islaamiga weeyo yacna jaajarada ama oramada oonagta ayay baan weeyeen xagoogana way ka qarinayaan ninka hadii arkaan oo maxay isagoo cunto siinayaan hadaa la weydiyo matana walada shiftada ma aragtay oo dadkooga oo adeeradooda oo ku jiraan ayay ka qarin jireen mid labaad nimankaas waa niman inta badan khibrad leh way oo si fiican mataqana dadka malmali karaya maxay yiraahdeen ururadii is abaabulina waxay ku magac dareen ma ciyaalkii cabdi xaydar baad idinku dawlad moodaysiin laba qofka yar ficil leh oo isagu doonay inuu reerkooga abaabulona waxay yiraahdeen mataqana qabiilkii bay kala saareen laba reer oo imika oo degan oo khayraad agta degan ayay kala saareen reer hebel baa ila dagaalamay intii kale nabad baatiin reer hebel hal la degina xataa xeer bay gaadhay reerka hadee reer kale oo qabiil kale ku soo degaan reerkan reer jabadan bay col leeyihiin hana la degin xeeray sayid adan bay gaadhay waxa weeyaan maxaa kale oo mucaarad oo naag iyo maxaa kale oo wadankan jabhado badan baa la soo maray dhibaatooyin badan bay bulshada la soo diristay intay aagan deganaayeen mulli kolka waxa weeyaan dhibaatooyinka ugu waaweyn dhandhamanaba waa la garanayaa dhibaatooyinka geysteen intay harka cad soo galaan inay ku laayeen umulaha kolka horta onaag waa laga dharagsan yahay balse yaa soo raacaya ama hataa jira abise kuwaan bay dhibku ku ekayeen may kaas qodob kuma maxaa soo raacay haddana mataqana qolo itixaad ilaahay baa soo raacday oo iyaduna marka abaabul rabtay inay ka sameeyso halkan dhaxdeeda oo iyadoo magac jihaad wato dadkana maadaama dadkan dad sida imika xalaaradda ilbaxnimada gaadheen ana gaadhin xoolo dhaqato oo geelo beera oo ku badan yihiin ayay doonaysaa inay ka sameeyso laakiin maadaama tii kale way arimo u noqotay way yar ka gaabsadeen tan muddo ma raagin oo tan way baabaaday talabaad kale aan kugu dareeyo waxa soo raacday onelif maadaama imika iyaduna ururadii imika
oo nabadda qaato soo yahay iyadana way timiday marka mullidan intii kale dadkii way kabsadeen oo way raaceen laakiin mullidan ayay ka waayeen taageero wax taageera wax muujiya oo nalfa muujinaya waqtigaa jirta ayay ka waayeen ka bacdi maxay noqotay oo nalf maxay ku qaatay cidiina hor istaagta waa cidii dawladda taageersan dabadeed meelo badan waxay soo gashay iraysay soo gashay halkaasna dhibaato badan bay u geysatay dudumcadka way soo gashay waxaa la yidhaha mataqaanaa halkaas ayay dudumcadkana ku leeysay laakiin dagaalkii ugu weynaa markaa biiqa la soo galay gabadh oo dhakhtarada meesha iyo nin wiil dhakhtar iyo gabadh dhakhtarada meesha farmasiya xoolaha dhex joogto aan la dilay maalintii kalena halkan bay soo galeen waxay dileen magaalada dhandhama marka dambe habeenkii ayay soo galeen 22 qof oo gabadhna ku jirto hal gabadha ayay hal maalina oo dileen kaambana dambeeyna haddana meesha reer tuulo yare boorto imika xagan oo beriga ceelgubayaha oo qalaalaha daaqada dusheeda ayay reeraha meel joogo intay soo ururisay 17 qof oo waxbana galabsanin oo dhalinyaro oo odayaal waayay ku jira oo sheekheed culimada ku jirta ayay hal mar meesha ku mariyeen intaas wax kale ma taageero ka waayeen darteed ayay soo sameeyeen maxaa halka ka muuqda kuwii taageeri jireen way laayeen oo abaawada markay raaceen iyagoo taageero siinayo dadkooda ka qarinayeen way leysatana tanna laakiin taageero ma siinin tanna way leysay maadaama onactive cidi taageertay maba ay dili jireen mucaaradkaasi yaa mucaaradkan dambe on la mucaaradkan waqti loo siin waayay ama waqti la sugu aamini kar waayay sababtoo ahna oo ay tahay dad macnaheedu aan cidi taageertay hada taageerin ba isku mid u tahay oo hadaf kale ay wataan taas daraadeed ba u saacidaysa in maartay bulshadu ka gaabsato dhibaatooyin hadda ka hor kala soo gudbay awgeed marka dabadeed ciidamadii wixii kale biiqa iyo dudumcadka waxa jira dad hadda ka hor iyaga oo maamulo ku jira xisbiga oo xilliga talada hayay oo qablaha maamulaya oo waxa jiray Abbas joogeen magaaladii amniga ay soo galeen intay soo dhex galeen bulshadii in ay dhibaatooyin badan uga geysteen xagga kale aan ku darayo meesha gooha la yiraahdo oo funyaan oo khayraad marka funyaan jabsan marka joogto ayay gabal maxay cadcaska soo bax ka xigta habeen reer meel hurda ayay aroorti dalayga mooska hoosteeda u dhigtay rasaastii 7 qof ayaa halkaasna ku dhimatay oo waxba galabsanin oo waxna bin sababta ciidan Malaysia oo marka iyaguna sababile meesha codon baa meesha maray ciidan qabiiliyo meesha loo aanayo ciidamada idinka noo keenay intay yiraahdeen ayay laayeen marka dadkan waa dad dhibaato badan mid kale waxaan ku weydiinayaa su'aasha kugu daray waxay tahay maadaama aad sheegtay ururo kala duwan soo maray maxaa keenaya mar walba in urur walba yimaado aagan aad bulshadan ay toogan tahay maxaa mar walba keenaya in ay timaado mucaaradku halkan waa meel istiraatiiji fiican marka haday mucaaradku galaan labada tog erar iyo daaqad haday galaan waa meel marinka la mari karayo oo haddana ku dhoomalaysan karayaan buuraleyde oo biyana u dhow yahay oo yacni magaalada oo ninka maadka la melmelana magaalada intuu maanta tago wuxuu soo iibiyo u keeni karaya marka meeshan waa istiraatiiji fiican u tahay jabhada markay buuraha galayso meel ugu fiican way halkan oo dhaxana lahayn oo kuleel saas lahayn oo qowba ballaadhan leedahay maanta ku qarsoomi karayaan taas darteeda maanta jabhada wadanka markay soo gasho inta ugu badan iyadu waxay roodaysaa inay qabato labada halbowlo taaqata iyo erar inay gasho ay aad iyo aad isku daydaa bas laakiin waxa jira shacab aad soo xidhan oo kala hor yimaada cadow walbaba gaashaankiisa kala hor yimaado oo iska difaaca ayaa run ahaantii mulli degan yaa la dhihi karaa laba urur baa soo maray labada urur baa mataqaanaa labadii urur marna wuxuu mataqaanaa wuxuu wataa magaca oo yacni xurrimada doono sameynaya ama magaca laf wata taasna ma raacin kii jihaadka u raacayna dhib baa ka soo gaadhay dhib baa ka soo gaadhay kana waa dhib baa ka soo gaadhay marka waxay ku go'aansadeen inay mataqaanaa iyagu inta maxay jabada raaci lahayn ama waxay raaci lahayn inay dawlad u hoggaamsamaano waxa lagu yimaadaa dawladda garab istaagaan oo mataqaan la dagaalamaan ayay dadkan hal mar ismaqli doonaan laakiin bulshada meesha degan bulshadan degan intaas oo dhibaato soo gaaraya mar walbaba ay tahay meeshan goob muhiim aday maadaama ay tahay oo dagaalo mucaaradka ay soo galaan aad ay meeshan meel bulshadu ay ilaashanaysa tahay ka dawlad ahaan degmo
waan ogahay magaaladan Andamane inay tahay degmo weyn. maxaa kaloo degmo oo soo raacayo oo Mulli degan, amaba Mulli ma gobolba ma degma heerka ay tahay, amaba maxaa ku xeeran oo mise degmo ah oo deegaan degmadan ay la leedahay xuduud. markaan leenahay macnaheedu mise degmo ama Soomaaliyaada ama Oromaada ama Hareeraha, maxaa hareeraha ka ah mise degmo weyn. marka horta magaaladan Dandamadan waa magaalo qadiimi ah. marka taariikhdeeda kolley oo la jooga mataqaana waa magaalo soo raagtay Mullidan 9 degmo oo yacna oo degmooyinka ama gobolada noqon ayay xuduud leeyihiin 4 Oromo iyo 5 kale oo Soomaali ah. waa dhul baaxadeedii aad iyo aad u weyn yahay. deegaanadii amaba deriska la nahay Oromiya haato deegaanka Soomaalida lafteeda aan ka tirsanahay ee degmadan hoos tagto, waxaa ka jira dhibaatooyin saameyntiis wad macaarad ay wataan aan siyaasadda waddanka saa ii sheegtay aan midna u dan ahayn oo bulshadan isqaadan karin. yaa imika waqti hadalkan ka socda ha ahado Oromada amaba xuduudaheena xaggan Afdheer iyo Shabeelle, waa dad magaca islaamka ku qarabsanaya oo hadda ka horba ay Mulli ka soo daashay inay maartay magaca islaamnimo aan jirin lagu sheeganayo ay kasoo hor dagaalameen oo kasoo hor baaba'een, oo hadda ay degmooyin qaarkood u cusub tahay baa jirta. balse laakiin Mulli waa magaalo ama Dandamane waa magaalada ugu horeysa ee lagala dagaalamayo mucaaradka waaweyn ee soo garabsanaya amaba diin ha wato ama mabda kalaba ha wato. waa mabda ay ku midaysan yihiin shacabka degmada Baabili in ay nabadoodana ilaashadaan. nabaduna waa nabad ay ku yihiin furaheeda weeyaan, nolosha ay haystaan maanta ay ku naloonayaan waa nabadda. kolkaa waxa weeyaan mucaaradka soo xarka guranaya ee xuduudaha kasoo gelaya amaba ee diinta islaamka ha wato amaba tan Oromada ee wadata mataqaanay midabta koor wadata. waxaasoo dhan waa wax hadda ka hor Mulli ay macnaheesaan anigu aan fikir ahaan aan aaminsanahay in ay soo maraan ka quustan ka tayaan tu ay ganaga macnaheedu magaalo ahaan ama deegaan ahaan dhib noo keenaysa haba yaraatee ma aha. kolkaa Aftax waad ku mahadsan tahay barnaamijkeena. intaas yara soo gabagabaynaa laba qodob ayaan dhahaysaa dadka bulshada deegaankan xagga nabadgelyada inay macnaheedu bal kala talisid, oo waxaan rabaa dadkan u sharaxdid dhibaatooyinka socda ee deegaanada aan jaarka la nahay iyo dadka deegaankeena aan maanta deganahayba dhibaatooyinka ka jira. bal Aftax fikirkaaga waan soo gabagabaynaa. bismillah. waxaan intaas aan ku yar kugu darayaa nimankan mataqaanaa dadka meesha jooga bulshada meesha degan ani ma maleynayo dadka mataqaanaa wixii meelo kale ka yacna oo ka hadlayaan ama qowmiyad ha noqoto ama ha noqoto diimeed ha noqoto oo haqaltaagayaan yani ilama maadaama dadkan dad soo maray oo dhibaato badan jabada isku dayday oo hadday dhinac isku duubnaadaan mooyaan hadday iyagu la kala saaro dhibka loo geysanaya. ani waxaan maleeyaa dadka imika xuduudaha aan maqlay Afdheer iyo Feerfeer marka la soo gala ani waxaan u baa bulshada meesha joogto hal dhig bay leeyihiin. waxay leeyihiin mataqaanaa waa dad luqada isku mid ah. waxaan ku qaadani in dadkan markay meesha haday soo galaan la dagaalamayaan oo maadaama cashir badan hadda koorba soo mareen dhibaato soo mareen taasaa cashir u noqotay. wixii yimaadaaba hadda kadib maxaa hada inay u hoggaamsamaan ama yacna oo raacayaan uma maleynayo ani markaa dhulkan. marka waxaan ugu dardaarmayaa dadkan oo yacna deegaanka ama dadka bulshada meesha joogta berigii hore dad ilbaxsan sidan oo kale xadaarada gaadho oo dhibaato iyo sameyn jirtay oo TV-yaasha iyo waxay sameyn jireen beri hore dadka arkay kama. laakiin dadka imika dad wax bartay oo jaamacadaha halka ka baxay baa jira oo culamaa jirta fikirkan baasha wadatana dhammaantooda oo ogi baa jirta. maadaama baashaasan jirto waxay Soomaalida daad inta ku soo galin baa la iska moosa. inaan waxaan ugu farayaa inay foog jignaadaan waxa la wixii ma taqaanaa fikirka laga dareemay wixii kale sida hadda ka hor baa jabaaday soo gali jirtay iska saar jireen intay israacaan la dagaalamaan bartay ku arkaan inay ku raadsadaan ayaan ku dardaarmaynay. صح kolka barnaamijkeenu hadda waa gabagabo dadka aan hadda ka hor nabadan aan iyaga haysano ama waayo aragnimadan iyaga aan sheeganayna wadankan in aan maanta nabad ku noolaano dadkii naftooda u horay amaba dadkii hadda ka hor wadankan u diiday inuu dhibaatooyin kasoo gaadhaan bulshadooda dadka
maxaad ugu ducaynaysaa hadday nool yihiin hadday dhinteenna waxaan leenahay waan u ducaynaynaa dadkaasaa macnihii dad imika ma aha nabadan helay waa dad baa naftooda u huray yaan dhigi karaa deegaankan aan deganahay foga aftaax adoo yar xusaya magacaantooda allah dhigayso dee intii dhimatayna mataqana allah u naxariise laakiin raggan halkan juhdi badan geliyeen hantidoodu geliyeen waxooloo geliyeen ciidan oon dawa helin oo dawa lahayn oo rasaas cid siisan lahayn oona haysanin wax mushaara oona haysanin oo intay isxilqaameen ama waxay ka yimaadaan meelo fafog ay ka yimaadaan magaca qadiyadda soomaaliyeed dadkanoo la doorsaday oo afkooga hooyo ka tegay intay gaarsiiyeen oo u halgameen dadkaasoo kale allah naxariista mataqaana waa markii hore barnaamijka horeysa kusoo qaaday cabdi xaydar rashiid macali aadan allah u naxariise iyo allah u naxariise sheekh cabdi aadan yali iyo dad kale imika jooga oo ka mid ah cabdullaahi maxamed iyo maxay cabdi baabile oo isaguna hadda jooga hormuud ka ahaa inuu maxay baashan iska dhicisiyaan dadkoogii intaasoo sanadood muddo 20 sano 30 sanadood oo luuqada ka tageen oo af Soomaali ka tageen intay halkan kala keenay oo aasaaskii la bilaabay ninka door fiican ka soo qaatay Maxamed Nuur Muuse markaa intay waliba imika anagu fiilaaga dhex fadhinaa oo TV-ga hashan daawanayna Axmed Yare allah u naxariiso Axmed Yare iyo markaa Sahal Carab Axmed Naasir Macalin Aadan markaa dadkan oo dhan waa dadka u soo horay naftooda iyo dhiigooga iyo intooda u soo horay maxaa la odhanayaa waxa lagu arki jiray barigaas dadka ciidanka waqtiga noqda nin masluuf oo waxba shaqo intuu waayay meelahaas laakiin iyagu waxay ka duulayaan waxay imika bulshada dhaliyada imika joogto ayaa ku ogaanaysa inay dadkaas halgan ku jireen laakiin dadka bulshada waqtiga jooga inay halgan ahayn hadday fahmeen laakiin oo ciyaalka halka ka baxay imika jaamacadaha madax ka yihiin oo qaarna ma taqaana oo doctorin yihiin marka hadday ma taqaamir dhalkeedii odayaashaas kadintan allah u naxariiso kuwa kareen ilaahay taa cimri dheer allah noo siiyay dadkaas ayaa saasoo kale u soo rafaaday mir dhalkii nimankaas beereen midheeda imika qoranayna anagu aan fadhina imika aan halkan fadhino dhadhab dhexdeeda imika wax iska duubayna ayaa imika midheedii bay ahayd ku rakaas bulshada waxaan ku daadamaya dadkaas halkan bayna soo gaarsiiyeen tacabkooga inaan khasaarinona annaga maxay ayaa sumcad daranay halka iyagu dhigeen mawjadii iyagu dhigeen inaan halkaas ka sii qaadno go'de oo maxay tacabkooga marka iyagu waxay khasaare ku tahay hadda tacabkooga la khasaari laakiin waxaan u faraya dhammaan cidina maqlaysa ama cidina dhageysanaysa inay magaranaysa ku taga ka taxadaraan waxyaalo badan oo soo galay inay ka taxadaraan oo nabadgelyada iyo midnimada sida hadda koorba marka la odhan mataqaana sheekh baa warqad soo diro barito leso nin walba alla bari marka galay hal galo leedo hal mar bay wadaaje ka sameeysan jireen reer muligan hal sheekh hebel baa saayidee te alla bari kala sameeyo marka roob doon yihiin iyo marka balaa timaado hal dhigi lahaayeen hal dhigi lahaayeen haddana waa inay insha Allah waxa rajayna bulshada maqlayso dhammaan inay dardaaranka iyo fariinta qaadanayaan barnaamijkana waxaas ku soo gabagaboobaya barnaamijkana gabagabo maraya waxaan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh